maalin buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam miskiidku soo galay wuxuu arkay nin reer baadiye ah oo salaad tukanaya oo salaadii dhexdeedana ku ducaysanaya uu istaagay nabigu markaa ducadii buu dhageystay waa duco cajiib ah duco boqolkii 90 waa ilaahay ammaantiisa yaa man laa taraahu alcuyuun walaa tukhaaliduhu aldunuun walaa yasifuhu alwaasifuun walaa tugayiruhu alxawaadith walaa yakhsha addawaa'ir yaa man yaclamu mathaaqiila aljibaal ilaa aakhirkeyga markaabuu nabigu yidhi Abu Muusa al-Ashcari buu u yeedhay wuxuu ku yidhi ninkaa ducada markuu dhammeeyey ikeen buu ka yidhi markaabaa loo yeedhay ninkii nabigaa ku doonaya namari marxaba markaabuu nabigu sal alla alay slam haniimo markaa la soo qaaday oo xoolo markaa uu qaybinayey ayuu kiish lacaga intuu ka soo dhex qaaday buu nabigu ninkii gacanta kaga riday nin baahan oo faqiir oo reer baadiye ah oo kuus lacag loo dhiibay ka warrama saasuu u qallibay uu farxay markaabuu nabigu ku yidhi lacagta sababta aan kuu siiyey maad garan buu ka yidhi markaasuu yidhi haa maxaad u malay inaan kuu siiyey dee tolnimaad ii siisay buu yidhi markaabuu nabigu ku yidhi waa runta raximkuna xaq way leeyihiin in wax laysku siiye laakiin lacagtan ujeeddadaan kuu siiyey waxa weeyaan bixusni hanaa'ika cala allah sidaad haddeertoona ilaahay aad u ammaanaysay ayaa ku farxay buu rasuulku yidhi taa darteed baana kuu siiyey buu yidhi sidaad ilaahay u baryaysay sidaad ilaahay u ammaanaysay waayo maqsuudka nebiyada adduunyada loo keenay baa ahaa inay bini aadanka ilaahay ku xidhaan markuu arkay nebigu shaqadiisii oo socota uu ku farxay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadna uu siiyey tacalluqa ilaahay dadku ay la leeyihiin baa nebiga agtiisa ku weyne lacagtu agtiisa kuma weyno xataa fii siirati cumar waxaa ku taalla haniimadii ayuu maalin maalmaha ka mida cumar dul fadhiistay markaasuu u qaybinaya saxaabada markaasuu arkay nin yaroo gacan go-an markaasuu yidhi gacantan maxaa kaa gooye buu yidhi wuxuu yidhi qaswadii halkaas ahayd ayaa dhaawacan lai geystay buu yidhi ku dhaawacmay markaasuu lacagtii buu cumar soo qaaday kun buu siiyey kun kale ugu daray haddana markaasuu cumar u qaybiyaa isagana weli meeshuu taagay oo lacagtii buu tirsanaya markaasuu cumar ninkii isha ku dhiftay haddana mar labaad mar alle markuu dhaawacii arko ayuu soo qaadaa kun kalu haddana siiya markaasuu cumar haddana u qaybiyaa markaabuu haddana isha ku dhiftaa halka yarka gacanta dhaawacu kaga dhacay markaabuu kun kale qaado uu tiriyaa uu siiya mar dambuu cumar markaa u waaya ki yaraa markaasaa lagu yihi cumar baa war ninkii meesha joogay meye waxaa la yidhi xoolaha aad siisay badnideeda ayuu la dawakhay uu ka socday meeshii wallaahi baan ku dhaartay buri cumar binu khadaab hadduu ninkaa halkaas sii joogi lahaa oo ishaydu mar walba naburkaa diinta ilaahay loogu dhaawacay ishaydu ku dhici lahayd xoolaha halkaa ayaa la isagaa ku dhammayn lahaa buuri